بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلى شيء أستمع مهم كه وأبعهي هاي أما لو جبهي قفك هجامية يعني كم تهاي قلبي وينان قلبي حادنان يلي حتشعله وكله هاي ضدك مركزي وهجامين أيوة أما الربائن في الرنتي سجاده نبي محمد عليه الصلاة والسلام مركب وقع مكة ومدينة تجي ضدك وجود تجي أنصارتها وحكم ذها nin la oran jiray Cabdullah ibn Ubay ibn Salul Cabdullah inta aanu nabiga imanin waxa ay tolkii u diyaarinayeen inuu noqdo markaa nin madaxa laakiin markii Nabi Maxamed meesha uu tagay maadaama hogaamiyuhu ummadda ahaa isaga noqday markaa cidii magaalada iyo dadka muslimiinta ah u madax ahaa oo ay arrinkooda iyo adduunkooda ay kala tashanayeen Cabdullah arinta calaal xumo ka qaaday waxaanu bilaabay markaas inuu dagaal hor la bilaabo inkasta oo Nabi Maxamed uu yiri waan ku rumeeyay oo uu ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah afka kalaha لكن دبهان عبد الله مو آمن سنين وحنقول عن صدين النقطة عدو جديد أما منافق والنبي جاء يكوح ديس الصحابة ديس يسوق لتشوجا لكن وحي عمر كاسي جنت كجوين كرو يسوق جودها كشرا وكشرا وحلقة الشجاع دعوين أذو بدن عبد الله دعوين كواوين وسميي وكمل جاي أما الربين وكجول دريه وجامنتا النبي محمد يجودها دين الإسلام كحكم ذها النبي محمد عليه الصلاة والسلام قبل ديسة بين أبورك اللي جسمي اللي عايشة يعني نكله جوجل داف لسه ما يسوي كم إذا هذا كأد كأبونبونية وحكم إذا هاي وكل عبد الله مر عيدا كان النبي قاد يوكب نايين إن صدح مراد مرك الله قبيم مهل كم إذا عيدا كي ومرك هربا كهبنا ولا جاء ود بدنا والدجال تجي والدحدة كسر عليه ما دام ونين قضية وضد بدنا يدجستان وهاي أنتوا تشوش كفر عيدا كي كلا برد وحكوا ما صدح مراد هالمال إنه دبوا سو جوستي سو مرك أقول درية waxyaalaha kale oo Cabdullah ku dhaqaaqi jiray waxa kamid ahaa oo taariikhda ugu jira in goor ay ka soo noqdeen nabiga iyo saxaabadiisu colaad oo ay markaas nasasho ay ku jiraan inuu abuuray tashuush iska horkeenay marka muhaajiriinta iyo ansaarta muhaajiriinta oo ahaa dadkii Nabi Maxamed kala qaxay Makka ee Madiina aaday iyo ansaarta oo dadkii markaas Nabi Maxamed ku soo dhaweeyay magaalada Madiina maadaama isagoo ansaarta oo kamid ahaa Cabdullah wuxuu yiri marka aynu laabano dadkii martida magaalada ku ahaa ee inoo yimi waa inoo kibreen markaynu laabano la yakhrijanna al-a'azzu minha al-adal kuwii duleysna oo uu sheegay markaa Nabi Maxamed iyo intii la soo hijrootay wa ka saari doonaan bulii haddana inagu aan saaranahay magaalada waxa kamid ah erayada uu isticmaalay oo nabiga iyo asxaabtiisa qaar kamid ah uu ku sheegay inuu lahaa eygaaga kori ha ku cunaane isagoo intaas oo dibin daabiya sameeyay oo Nabi Maxamed waxa weeyaan iyo diinta uu waday waxa soo dhibaato u geysanay isagoo mar walbana la waan ku aaminsanahay oo munaafiq u weynaa ah ba Cabdullah uu geeriyoonaya wiilkiisii baa Nabi Maxamed oo imanaya wuxuu leeyahay Nabi Maxamed waxaan u baahanahay go'aaga si aan aabaha ugu kanfo waa Cabdullah ibn Ubay salol waa munaafiq ugu weynaa waxa soo dibin daabiyo iyo dhibaato nabiga u geystay gabadhiisa ka been abuurtay ciidankiisa ka afduubtay iska hor keenay ilaa mar ay seefta isu qaadan gaareen muhaajiriinta iyo ansaartu markaa iska hor keenay ilaa Nabi Maxamed soo kala dhaxgalay nabiga calayhi salaatu wasalaam oo oran waa kii waxa soo dhan igu sameeyay qalbigiisa oo balaaran iyo naxariista uu bini'aadamka oo dhan u hayay aawadeed waa bixiyo wuxuu ku yiraahdo oo ku kafan go'ay nabiga waxa lagu kanfayaa munaafiqi ugu weynaa inankiisa hadana waa u yimi wuxuu yiri Nabi Maxamed oo ina mari oo aabahay ku soo tuko qabrigiisa nabiga calayhi salaatu wasalaam waa raacay waxaan u doonay inuu ku soo tukado isagoo Umar iyo asxaabadii kale ee la socotay leeyihiin Cabdullah oo munaafiq oo sidaas oo dhan yeelay barabta inuu ku tukado Nabi Maxamed leeyahay haddii ilaahay iga yeelayo inaan dambi dhaaf weydiiyo waan u dambi dhaaf weydiin lahaa Nabi Maxamed isagoo go'aansaday oo ku socday inuu ku soo tukado ilaahay quraan ku soo dejinaya wala leeyahay wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabri mid iyaga kamida munaafiqiintaas ha ku tukan qabrigiisana ha tagin laakiin Nabi Maxamed wuxuu awood u lahaa oo qofnimadiisa iyo dadnimadiisu ay siinayso hogaamiye kastana looga baahan yahay cid kasta oo cadow u ah cid kasta oo la dagaalanta in la xajaclo iyo naxariis iyo qalbi furnaan mar uun ay rajo ka qabaan dadkaas inay soo rumayn karaan ay kula tacaamulaan oo kula dhaqmaan shakatan ku xigta intaan ku kulmi doonana dhamaantiin waxaan ku dhaafayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh